waxaan rabay inaan kelimada ka dhaho ama aan fikirkayga runtii ku cabiro marxaladii ugu dambeeyey ee ku sugnayd magaalada Muqdisho oo runtii ah nisib darro weyn oo ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii ku dhintay in ilaahay u naxariisto, inta ku dhimata inta ku dhaawacantana ilaahay maaragtay oo caafimaad siiyo. intaas kadib dhibaatooyin kala duwan ayay muddooyin kala duwan ku soo jirtay magaalada Muqdisho oo ama ha ahaadana mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid amni intaba. laakiin kuwa hadda ugu dambeeyey waxay ahaayeen runtii waxaan marnaba la aqbali karin siday u dhaceen. magaaladuna maaha magaalo runtii jinni leeyahay. magaalada insiya ku nool, dadaa ku nool, maataa ku nool, ku barakacday, ku dhimatay, ku dhibtootay. waxaan rajaynaynaa arrintaasu rabbina ka baryaynaa inay noqoto markii ugu dambeysay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee foosh xumaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho habeenkii xalay shaqada dhexe iyo saakaba. waxaan leenahay dadka ama qofka siyaasiga ah ee raba inuu waddanka ka noqdo wax madax noqdo ma yahay shala ka ahaa ama beri inuu ka rabaa yuusan ku raadinin xalka uu raadinayo ama quraacda rabitaankiisa shakhsiga uu raadinayo ma helayo. yuusan ku raadin xabad, ha ku raadiyo wada hadal, raadiyo walaalnimo, raadiyo is-afgarad. waxaan kaloon la aqbali karin haddii shirar ku dhacaan ka dhacan gobollada iyo meelo kale mas-uuliyiinta dowladdu ku muddo afgaran waayaan afgarasho la'aanta ka dhacda wada hadallada looga hadlayo doorashada Soomaaliya natiijadeeda mar la keeno iyadoo dagaal ah xabada ee xabad loo waxaan rajaynaynaa dadku inay baraarugaan rabnaa nidaamaan rabnaa kala dambeyn rabnaa. magaaladan dad jilacsan oo dhan walba dhibaato ka haysaa ku ma aqbali karto dagaalka loo sii wado. waxaan rajaynaynaa ama ha aadeen dowladda federaalka, ha aadeen mas-uuliyiinta kale saamilada siyaasadeed magaalada Muqdisho ku nool. waxaan rajaynaynaa laba qofoodoo kasta oo is haystahay ma wada saxna waa ognahay. annaguna magaalada waa joognaa, xoogaalna waa nahay, dhaqanaan nahay. dhaqankuna qof uusan hor fadhin qaladkiisa media ugama faro. waxaan rajaynaynaa qof walba inuu is-xisaabiyo, berrina aakhira ku sugaysa, rabbi ayaad xisaabta hortegi doontaa. haddana dadka adaa doorasho ka raba. haddaad dadka aad doorashada ka rabto ood berri hor imaanayso ood u sheegi rabto waxqabadkaaga, ma waxaad waxqabadkaaga uga dhigaysaa inaad xabad ku layso? ma shaqaynayso. qof walba miirkiisa ha soo celiyo, rabbi ha ka baqo, candhuufsi dib how laqo. waxaan rajaynaynaa in uu shaqeeyo yacni garashada iyo miirka oo saas lagu soo celiyo walaalnimadii iyo wadahadalkii isfahamkii. halkaas waxaan rabaa qodobkaas inaan uga baxo dhacdooyinkii xala dhacay. intaas kadib qodobka kale waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashada. waddankani muddaa la soo hayay doorasho oo la qabanqaabinayay, shirar kala duwan la isugu tegey. markii ugu dambeysana waxay ku dhammaanayaan natiijo la'aan. waxaan rajaynaynaa waddanku doorasho degdega inuu aado. mas-uuliyiinta xilka gaarku ka saaran yahay ee shirkii 17 Sebtembar heshiiska ku gaaray iyo saamilada siyaasadeed ee dalka joogtahay, waxaan rajaynaynaa doorasho lagu heshiis lagu wada yahay in waddankan laga qabanqaabiyo. si gaara waxaan uga hadlaynaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo madaxweyne ugu horeeyay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobollada oo iyagu ah cidda miiska wada hadallada ama heshiiska hore u gaartay haddana u ballansan. waxaan rajaynaynaa waddanka sida uga dhaqsaha badan in doorasho loo geliyo oo aan lala daahin. xal kale oo waddankan lagu xalli karaa ma jiro, waa doorasho degdega waddanku inuu aado. qof kastaana ha ku kalsoonaato waxay doorashadaas ka hesho. doorashaduna ha noqoto mid loo siman yahay ama heshiis lagu wada yahay. cid kasta oo arrintaas qusayso ama Soomaali ha ahaato ama dadka Soomaaliya arrimaha dana beesha caalamka ha ahaatee, waxaan rajaynaynaa inay gacan ka geystaan. waan rajaynaynaa insha Allah idanka Ilaahay inay wanaag noogu dhamaato. intaas kadib waxaan kaloon rabaa inaan wax ka iraahdo
dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo saamiliyada siyaasadeed waddankan idinkaa shalay soo xukumayseen qaarkiin haddana qaar idinkiina ka madaxa xukuma berrina inaad xukunka aadiin aad rabtiin waxaan rajaynaa nin ayaa gabar laga aroosay ninkii marka mar walba gabadha waxay imaanaysay iyadoo caroonaysa aabbihii mudduu u dul qaatay gabadha oo ninku xoogaa ka soo caroonayso oo soo dilayay maalintii dambe wiilkii oo gabadha ka qaba u yeeray wuxuu ku yidhi adeer waxaan rabaa inaan tala ku siiyo wuxuu yidhi gabadhan adagaa qabta aday kuu dhaxdaa aday kuu dhashaa qodobka ugu horreeya gabadha hayska dilnaan kula howd in qodobkaas kugu filnaadaan jecel howd haddii qodobkaasi kugu filnaa waayana mid labaadaan kugu darac wuxuu yidhi adeer gabadha adna waa kuu dhaxday anna waa dhalaye shirkaan ku nahay hanaga dilin intaasi hadday ku anfaci weyso inay ku anfacdaan rajaynahay ugu dambaysta waxaan ku leeyahay wuxuu yidhi intaas hadday ku anfaci weyso maaramalihide adeer gabadha anaa dhalaye hayga taabanaan ku leeyahay waxaan rajaynaynaa madaxda siyaasadeed ee waddanka ee iyagu kuraasta hadda ku fadhiya ama hor ugu fadhiyey ama berri raba waddanka ha ku heshiiyaano annagana ha noo heshiiyaano ummaddana horumar ha la aadaano magaaladan gaar ahaan oo muqdisho nabad ha loo daayo horumar ha loo daayo maahan in magaaladan ay u noqoto calaamad fidno iyo dagaal iyo hoog iyo ba anagoo og in qaarkood ay siyaasadaynayan oo muraado kaloo gaara laga leeyahay ma aqbalayno dadku haddii fahmi waayaan oo warkeenna ay fahmi waayaanna waxaan idin leenahay magaalada dad kalu ha u tashadaano marka hore nidaamkaan dhowraynaa dowladnimadaan ilaalinaynaa sharafkaan dhowraynaa caasimadnimadaan ilaalinaynaa inaan lala fahmaan aan jecelnahay dowladdana waa garab taagannahay siyaasiyiinta kale waa garab taagannahay dhammaantiin walaalahanatiin waa idin soo dhowaynaynaa laakiin waxaan idin leenahay magaalada muqdisho yacni siday hadda ku sugan tahay si la aqbali kara maahan waxa laga bedelo cid gaara anagu farta ku fiiqi mayno ways wada ognahay dhammaanteen walaalaan nahay qaraabaan nahay soomaaliyaan nahay halkaanaan wada joognaa waxaan rajaynaynaa in maaragtay ummadda wanaag loo horseedo guud ahaanna ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba waxaan u baaqaynaa wanaag midnimo iscafis meel kastoo dagaal ka socdana waxaan rajaynaynaa in la joojiyo cudurka iyo maaragtay dhibaatadana allaha naga qaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka